السلام عليكم. sawirka korkayga saaran waxa weeyaan nin nimanka maaragtay qomluudka marka laba nin oo isla nool weeyaan ilnan yar ayay soo kaxaysteen meelaha maaragtay dadka caruurta marka laga soo qaado reera sii qaata marka labadan nin waxay soo qaateen inan yar hase ahaatee inanta yar waa inan yar oo Afrikaan ma Soomaali ba ma Afrikaan kala ma ogin adigu de waa inan yar oo inaga ma fahanteen ha soo qaataan ninkan wuxuu soo fariistay social media hiisu soo fariistay waxaan jecel waliba inay TikTok live ahayd wuxuu sameeyay markaa garfeer yar oo burush buu soo qaaday inanta yareed buu madaxa saa uga xoqaya marka wuxuu leeyahay ma ogtihiin waxaan soo qaadanay inan yar baan soo qaadanay inanta yarina waa inan yaroo madow weeyaan marka waxa aan dadka daawadayaashayda ee madowga oo dhan aan ka codsanayaa inay ku caawiyaan sida ama ibaraan ama iisoo sheegaan sidan timaha ugu hagaajin lahaa wixii aan u marin lahaa inanta yar waa inan yaroo mujaa 2 bilood bay jirtaa haddii ugu weynta 2 bilood bay jirtaa meelahaas waa de ilmo imikuun dhashay oo nad arkayso 2 bilood 3 bilood wuxuu leeyahay markaa iisoo sheega sidii maaragtane dadka madow timaha u hagaajisataan waxaad koobaad wax aad looga xumaada inta ilmo yar maaragtay hooyadii dhalashay laga qaaday haddana dad noocaas oo kala ay qaateen waxa aan anigu doonayo inaan idin kala hadlo waalidkay daawanayo dunidu iminka sidii hore maaha haddii ilmaha laga qaado oday iyo islaan loo geyn jiray reer caadi qaadan jireen ma garanaysaa dee walow aanay awalba dad diin lihi aanay qaadanayn haddana ay dad adigu nin iyo naagahoo dee si maaragtay caadi isula jooga ay qaadan jireen imika caruurtii waxa u soo dhigtay oo inta badan qaadanaya nin naag iyo naag isla jooga nin iyo nin isla jooga waxa aan videogan aad kuugu baraarujinayaa haddii aad hooyo tahay haddaad aabba tahayba feejignow dagaal baa nolosha lagu jiraa dagaalkaasoo in caruurtaada aad fara ku haysid oo ay adiga kula noolaadaan caruurtaada iska ilaali inaad wax yaroo maaleecana u dayacdo iska ilaali inaad social media ka qaylinayso u dayacdo iska ilaali ina wax kaaga muhiimsani maba jiraanba calool xumo ka weyni iyo nolol xumo ka weyni iyo ciil ka weyni iyo cuqubo kugu dhacday oo ka weyni maba jirtaba inta ilmahaagi laga qaatay 2 nin oo isla jooga ha loo geeyo oo deetana halka social media intay la soo fadhiistaan hay yiraahdaan sidee baanu xaarka uga biilnaa sidee baanu ugu feedhnaa dadka madowgo waa nolol xumo halkii u dambeysay weeyaan haddaba iska ilaalinaanay tani kugu dhicin ku dadaal inaad ka feejignaato ama ka digtoonaato waxyaabaha lagugu soo marmarsoon karo ee lagaaga qaadi kara caruurtaada taasoo inta badan inagu aynu sabab u nahay waalid ahaan sabab in yar mooyaane in yar dhan inaga u sabab waalid ahaan in caruurta la qaato dil baynu samaynaynaa hanjabaad baynu samaynaynaa caga jugleen baynu samaynaynaa dayac badan baa caruurtii ka muuqda ha laga digtoonaado qaar bay gaajo meelaha ku haysaa laakiin anigu ma malaynayda malaa ilmeero hooyo Soomaaliyeed dhashay inuu gaajoonayo waxay ka adag yihiin dumarka Soomaaliyeed cuntaa jirta inta kalena bal iska ilaaliya ilmahaaga ku fara adayg haddaad mid dhashay haddaad 5 dhashay haddaad 10 dhashay ku fara adayg meel xun bay haddii kala ka dhacayaan oo aad uga murugoon doonto